ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo danjiraha cusub ee midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Martinez oo kulan ku yeeshay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxay uga wada hadleen xoojinta xiriirka midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo dardargelinta mashaariicda midowga Yurub uu ka fuliso Soomaaliya. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Martinez ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee uu sameeyay xafiiskiisa una ballan qaaday inuu ka shaqayn doono dardargelinta mashaariicda ay dalka ka wadaan iyo xoojinta xiriirka labageesoodka ah. ra'iisul wasaare Khayre ayaa midowga Yurub uga mahad celiyay taageerada weyn ee la garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay shiray ka soo qayb galeen taliyaha iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Soomaaliyeed iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ka oo looga hadlay horumarinta booliska Soomaaliyeed. midowga Yurub ayaa Soomaaliya ka taageeray dhinacyo badan oo ay ka mid tahay tababarada ciidanka booliska si sare loogu qaado awoodda iyo xirfadda sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Nasr Basheer Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.